waxa la yiri tan ayay tan isku burji yihiin marka xanuunku tan baa lagu rogayaa hada doonaysiin inay bogsato gabadhani inay bogsato ee caafimaad hada doonaysiin tan kale lagu rogo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدباني سلامي صاحبي يال دمانتين ملك صدافة الدنيا ذات كجوكتين برتنا نقدي هنسوا على لقن هذا نقول عصبتها سبسكرايب لايك إيه كومنت مركز سوي نديري قليان هدي أدنى لجوكتين واد ما صنتهاي أنت مركز لقي ما دوحان كله وذاك الربا هدو إلى هاي رادو قصة حقيقة أنا جو مركز عن مغلي آد أو حي وهان هو بعد يقولنا مركز أدي لدقي ستيت أنت أنا جو عن كنا حيوات كني حدو أنت آد بان حقيقة uga argagaxay markii anigu aan dhageystay waxaan aaminsanahay markaad dhageysatay adiguna inaad aad uga argixi doonto waxa ila soo wadaay wiil aan saaxiibnahay wiilkaasi waxa uu baahan yahay talo iyo tusaale marka qisadu waxa weeyaan waa arin saa isku noqonaysa isku walaaqan marka bal waxaan isku day inaan sidaan u fahmay aan ku fahansiiyo qisadu waxay ka dhacday geeygeena marrabi inaan cabiro meesha oo ay ka dhacday iyo magaciisa iyo cidiisaba intaaba marrabi inaan sheego marka qisadu sida tan bay u dhacday wiil iyo gabadh ayaa is jeclaaday deetana way isguursadeen waxaana isku guursadeen ala sunnati rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam sunnahi rasuulka iyo dariiqadii uu inoo jideeyay ayay isku guursadeen waxaana gabadha ka doonay reerkii ay ka dhalatay dadkoogii buu ka doonay gabadhu waxay ahayd gabadh agoona waxay la kortay xaafadda adeerkeed iyo ilma adeeradeed ayay la kortay oo wiilal iyo gabdho leh laakiin iyadu waxay la dhalatay wiilal wax gabadhana iyada ku jirtay xaafadda adeerkeed ay ku kortay ayadeed bay iskala deganeed iyo gabdhaha ilma adeerada ay yihiin iyo wiilasha ay ilma adeerada yihiin xaafadda ayay gabadhu ka shaqeynaysay ilaahay calafkeegii buu u keenay way isguursadeen si sharaf leh ayaa looga qaatay gurigeegii baa la geeyay gurigeega ayay iska deganeed ilaahay wuxuu ku arsaaqay ubad ayuu ku arsaaqay wiilal iyo gabdho leh waxa dhacday gabdhihii ay la kortay ilma adeeradeed had gabadh kamid ah ayaa xanuunsatay xanuunkeega muddo badan uu soo jiidmayay dhakhtar meel kasta loola maray ana xanuunkeega hore loo helin marka gabadhii waxay ku dadaali jirtay markastaba gabadha in adeertaa ay xanuunsan ee soo wada korteen in muddo badan waqti badan soo wada qaadateen inta aad u gargaari kartay u gargaar markaas waxay ku dadaali jirtay inay ka warhayso gabadhan xanuunsanaysa ee guriga jiifta iyadoo gabadhaasi oo walaalaheed iyo wiilashii walaalaha ay ahaayeen ba ka weeday garab inay siiyaan qof kastina shaqadiisii uu ku toosay balse gabadhan ayaa u dhabar adeegtay say gabadhan uga warhayso haday tahay dhakhtar jal iyo jiijiidba waxay u soo dayacday reerkeegii ubadkeegii ninkeegii ayay u soo dayacday si ay gabadha in adeerteeda uga warhayso ninkeegu waa dan yar ayuu ahaa ama yumle maalintii ayuu yum u baxaa waxa uu maalintaa la soo hooyda ayaa dabka loogu shidaa hadduu maalintaa waxba ula iman waayo wax ay dabka loo dul dhigayo ma jirto ama dabkaasi waa damsan yahay maalinta siday doontaba ha ahaato gabadhii xanuunkii waa ku sii siyaaday meel kasta la mariyay dawadeedii waa la waayay waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah waxa xanuunsatay gabadhii wiilku uu qabay gabadhii kalena ilaahay waa caafiyay gabadhii muddada badan xanuunsanaysay ilaahay waa caafiyay oo waa kacday gabadhii gabadha u gargaaraysana way xanuunsatay oo way dhacday
laakiin waxaa ku dhacay xanuunkii gabadhan haye oo kale ayaa ku dhacay sidii gabadhaas ay u xanuunsanaysay u xanuunsatay dhibtii waxay ku hadhay wiilkii iyo ubadkiisii dhibtii ku soo hadhay ninku waa danyar waa yuumle maalintaa waxa uu soo helo ayuu reerkiisa wax ku leeyahay sida doontaba ha ahaato gabadhii way xanuunsatay way dhacday gabadhii waqti muddo badan ayay qaadatay gabadhii meel kasta ayuu mariyay haday tahay dhakhtar iyo haday tahay dawo kale quraan saar wax walba waa ku dayay ninkii gabadhii waa la daalay way isla daaleen marka ka dambeys xanuunkeedu kor buu isku sii shareeray dhakhtar waa u geeyay sheekh waa u geeyay meel kasta waa mariyay dhakhtarkii marka la geeyay waxa la leeyahay waxba kuma hayaan sheekhi marka loo geeyay waxa la leeyahay gabadhii waxba kuma hayaan laakiin waa wareeray wax ali waxa uu sameeyo garan waayay laakiin ujeedada waa halkan weeyaan maalmaha kamida waxa dhacday oo maalmahan hadda aan ku jirna ah inay isqabsadaan gabadha reerkeedii ama gabadha ilma adeeradeed bal u fiirso xaqa hadii afka la qabto oo fahu ka dilaaca waxa isqabsaday gabadha ilma adeeradeed iyo walaalaheed baa isqabsaday wiilkani ma ogo sababta ay labadan ay isku leynayaan sababtan faamigana ay isku leynayo balse markii dambe waxa la ogaaday in la isku leynayo xanuunka gabadha waxa la ogaaday ama waxa la sheegay xanuunka haye gabadha inay iyagu u sababeen in xanuunkan lagu sababay gabadhii hore u xanuunsanaysay ee guriga jiftay ee gabadha ilma adeerka ay ahaayeen ay gabadha u gargaari jirtay gabadha ayaa xanuunka loogu bedelay baa leeyahay waa qisada iga yaabisay xaqiiqatan markii aan maqlay xaqiiqatan waxa igu beertay walaac badan iyo argagax xanuunkii gabadhan hayay ayaa gabadhan lagu rogay see loogu rogi waxa la yiri tan ayay tan isku burji yihiin marka xanuunku tan baa lagu rogayaa hadaa doonaysiin inay bogsato gabadhani inay bogsato oo caafimaad hadaa doonaysiin tan kale lagu rogo bal jaahilnimada eega keenu ay sameynayaan u fiirsada tan bay isku burji yihiin tan xanuunka lagu rogaa leeyahay tan kale lagu rogo ayaa saa oranaya cidda warka aqbalaysa ee warka la imanaysa ee warka ku dhaqaaqaysa waayeen waa ilma adeeradeed waa dadkii ay la soo kortay agoontu ee adeerkeed uu dhalay okay baa la yiri gabadhii kuwii wax walaaqayay gabadhii baa lagu rogay xanuunkii macnaha sixirkii iyo balaayadii iyo wixii haystay baa tan kale lagu rogay waxay noqotay gabadhii daacadii u gargaarto in iyada wixii sixirkii iyo balaayadii lagu rogo waxay noqotay in iyadu xanuunsato 5 sano kadib ayaa maanta la ogaaday waa 5 sano hadda waa 5 sano kadib waxa la ogaaday imika cadaawada iyo jaahilnimada dadkeena bal u fiirso 5 sano kadib waxa isku qabsaday labadii reer baa isku qabsaday ilma adeeradeed ay inamadii walaalaheeda ee ka yaryaraa maxaa yeelay gabadhani waxay ugu weyneed faamigooga iyada ugu weyneed inamaduna way ka yaryaraayeen wax gabadhana iyada ku jirtay reerka 5 sano kadib ayay walaalaheed kaceen waxay ogaadeen in gabadhii xanuunsanaysay xanuunkeegii ama baabkii iyo balaayadii tan kale lagu rogay oo gabadhooda lagu rogay gabadha in adeerteedna laga soo rogay fajaci ama kaag baa ay qabsaday aad iyo aad baan u yaabay maxaad u malaynay ninkii ay ku dhacdayna 5 sano la rafaaday isaga oo waliba itaalkiisu aad iyo aad u liito oo dan yar ah oo ciyaalkiisi u kala daadan yihiin hooyadoodii dabka u shidi lahaydna wixii uu soo helay kolba dhakhtar iyo kolba sheekh iyo kolba maxay lagu geynayo 5 sano kadib inay yiraahdeen annaka ayaa daweysanayna bal ka warama hadii adigu ku qabsan lahayd maxaa sameyn lahayd wallahi waa wax aad iyo aad looga xumaado wax kale oo raahda garan maayo laakiin waa jaahilnimo ay xaasidnimo dadka qaar oo xaasidina bal miskiintaasi nolosheedii iyo mustaqbalkeedii reerkeedii laga ciyaar wariba markaaba la doonaya markaaba la leeyahay reerkaaga ha u sheegin odaygaaga ha u sheegin inuu ogaanin inay arintani dhacday oo sidaa la sameeyay odaygaagu inuu ogaane hoos ayaan ku daweynaynaa ha u sheegin wallahi halka bay maraysaa jaahilnimadu ilaahay ceebteena astro ilaahay ceebteena astro xaqiiqatan أنا وحى ورمي وانكي قصة أنا كل عضي إلهي هو جرجارو حقيقة أديكو دعوة طلاق يتصالم حاسين لهاي نكا واحد طلاق محاسين لهاي
maxay inuu sameeyo ayaa la gudboon ayaa la soo rafaaday inta oo dhan maanta se waxay taagan yihiin gabadha faamigeegu annaka ayaa daweysanayna labadii reerkii gabadha inamadii la dhashay iyo inamadii ilmaadeerka ay ahaayeen adoo labadii reer ee faamiga ahaa dagaal iyo dab ayaa dhex yaala waxay leeyihiin gabadheeda waa disheen gabadhiina ayaad ku badbaadsateen qoladan kalena waxay leedahay annaka ayaa daweynayna marka daawade adigu maxaad tala siin lahayd taladaadu waa muhiim wixii tala ah hoosta ayaad nagula soo wadaagay hadduu ilaahay yiraahdo videogeena maanta intaa ayuu ku kooban yahay xaqiiqatan intaan iskugu iman doono videogan xiga waxaan naga tegaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amaana Allah